يا كرشلين أو حوجة iyo garmo jalbaa leeyahay wal mal aqalkiisa ku gudub albaab xudurwada ku kala tagayna la rabo inaad aqalkaaga ku kala qayso shanta qaybood oo qaysata mid walba wuxuu leeyahay kun midho tafsiira waxaan isweydiinaynaa qofaan dhalan oo hooyadii ku jira ayaa Soomaalidu wax ka qabataa waa inanta habeenkay dhalanayso iyadaan dhalan oo ogeyn waxay tahay baa loo taqabtaa hooyadu waxay tiraahdaa waa intaas ay noqotay hebla doonaan qabatay heblada maxaa lagu ogyahay halaga reebayaa inay hebla qabato afada kale barbarkeeda ku jirta inay qabataa baa loo diidayaa waxaana la doonayaa in hebla qabato hebla u yeedha way tiraahdaa qabatay way soo dhacdaa markaasaa la arkaa inay inan tahay inanka jirjirkaa loo jiifiyaa inantana xagga midig baa loo jiifiyaa labada mawdana waa la isu saaraa haddii ay kala qaadana waa la isku xidhaa qosor maayo waa cilmiya gabaysa qosor maayo markaasaa macallinimadu bilaabantay dhegaysta markaasay macallinimadu bilaabantay oo ilanta macallinimadeedu ilaahay ka gurugeyso habeen walba waa cilmi gooniya oo hooyadu ay ka shaqayso taasina waa taas marka ay inanka markuu laba jeer waa yidhahdaba la canqariyaa inanta lama canqariyo ilaahay qallasho xundhurta loo xidho lama canqariyo markaasaa loo sii bilaabay inay istoor tahay oo reerka iyada la isugu geynayo laga rabo inay aamin geliso marka ay cabaad joogtaa baa la yidhahdaa heblaha soo hadashay heblo celiyaa la yidhahdaa adoo heblo ugu yeedha soo ballaysay hadda waa dhaqanka maanta jooga maaha waxa maanta laascaanoodaan idinka tusayo maaha arrintani oo wixii aan ku garadsaday waxaa ugu dambeeya inanta mandheertiisa geed baa la saaraa waraf baa la qaataa laba haadood oo qura baa loo ogolyahay gorgorka iyo baalka la yidhahdo galayg ayaa loo ogolyahay inta kale waa laga dhabi jiray fuleyan casri baa laga dhabaya inanta waa bad baa loo qodaa meel baa la duwaa ciid cad baa lagu shubaa caleen baa lagu daadiyaa mandheerteedaa la dhigaa caleen baa lagu xidhaa dusha dibadna waa lagu aasaa asturaad baa intaa looga jeeda waxaan idinka baryayaa qoraayaasha dalka joogow waa ku filantiin inaa ingiriisi wax ku qortaan inaa carabi wax ku qortaanna waa ku filantiin annaha dhaqanka soomaalida idiin dhigay meel isugu keenkeena aad buu mahadsan yahay abwaan cismaan ibraahim warsame oo malaahure walwal qof kasta uu ku garan og yahay baanalkan ama kulankani intaasuu ku dhammaaday aad bay u mahadsan yihiin labadii ustaad labadii aqoon-yahan ee ka qayb qaatay aniga iyo doctoorkana aad baad noo sii dhawaynaysaan aqoon-yahankana aad baad u soo dhawaynaysaan marka la soo geli doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه بعض ما أنا وأنا مثلا ما حد قدر يستنسى وعاول لواين لو إمام